السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يالو مeel kasta dunida ka joogtaan ku soo wada maanta iyo taariikhaheeni joogtada ahaayeen ugu hadalno channelkeena kanu taariikhaha iyo madadaalada ee qadar fani show maanta waxaanu ku soo qaadan doonaa qaybaha taariikhaha channelkeena kanu taariikh gooniya oo ay naga codsadeen jamaahirta nagu xiran ama taageerayaasha nagu xiran ama saaxiibada channel kanu ee aan ahayn taariikh ciyaartooy ee aan ahayn taariikh kooxeed laakiin waa taariikhda ugu weyn taariikhaha kubadda cagtu ee waate haddaadan taariikh kooxd noo sheegaynin oo aadan taariikh ciyaartooy noo sheegayn oo maxay tahay taariikhdaad noo sheegayso waxaan idinka sheegi doonaa taariikhda lagu jecel yahay waxa ciyaartooyda isku dagaalaan waxa ciyaartooy kasta ugu dhimanayo wuxuu ciyaartooy kasta ugu dagaalamayo waxa ciyaartooy kasta sumcadiisa uu kor u qaadaya wuxuu ciyaartooy kasta ku riyoodo xitaa anigoo maxamed qadar ah dhowr mar baa midaas ku riyooday waanan sameeyey waar maxaa weeyaan waxaad xitaa adigu ku riyootay waa Ballon d'Orku ayaan wax badan kaaga sheegi doonaa maanta taariikhdaba historiga Ballon d'Orku ayaan wax kaaga sheegaya halku ka soo bilowday Ballon d'Or in la sameeyo in la bixiyo muddada la bilaabay taariikhdu jiro sida lagu kala guuleystay wadanka taariikhdan Ballon d'Orku ugu badan kooxda ugu badan Ballon d'Orku qaaday ciyaartooyda ugu badan Ballon d'Orku qaaday wali waxaan soo qaadan doonaa asal ahaan taariikh gooni oo ilahayd Ballon d'Orkanu ciyaartooygu wadan kasta looma ogolaan jirin wax badan oo Ballon d'Or ku saabsan baan arki doonaa iyadoo sanadkan Ballon d'Orka ay ku tartamayaan Messi, Ronaldo iyo Virgil van Dijk inkastoo aan isleenahay sanadka kanu mar kale odayaashu maradu ka dhici doontaa wallow sanadkii hore Madrid uu ka qaaday haddana waxa loo arkaa in Van Dijk uu markale ka dhex qaadi karo sababtoo ah adduunku waa isbedelay adduunku ma Messi-isna ma Ronaldo-isna adduunyadu beri ayaa uu Messi-isnaan jiray oo xataa abaalmarin iyagu ay lahayn bal looga xoogi jiray ciyaartooy oo la Messi-in jiray marna Ronaldo abaalmarin aanu lahayn bal loo xoogi jiray Ribery kaasna loo xoogi jiray Iniesta iyo Xavi marka adduunku waa isbedelay adduunku maanta wuxuu marayaa ninkii Jamligu qaado abaalmarintu hal la siiyo waxaanu eegi doonaa jaysada mucaanka ah ee Golden Ball ama loo yaqaano Ballon d'Or ma ogtahay waxa uu jira hadda ahaan waqtiga Ballon d'Or ku jiro Ballon d'Or uu ka da'weyn yahay FIFA abaalmarintan FIFA ee ay bixiso The Best loo yaqaano iyo Ballon d'Or waa kala qiimo badan yihiin The Best hadda waxa lagu dhawaaqi doonaa maalmaha soo aadan 13 bishan September ayaa lagu dhawaaqi doonaa waa abaalmarinta FIFA ay bixiso The Best ayana waa mid kale oo ah xidig ugu fiican dunida Ballon d'Or kana waa xidig ugu fiican adduunku laakiin Ballon d'Or ayaa aad ugu qiimo badan The Best abaalmarinta FIFA ay bixiso inkastoo ay yihiin laba abaalmarin oo hal magac leh oo muhiimadeedu ay tahay kii la siiyo labada abaalmarinba waa kan ugu fiican dunidu balse The Best in badan waxa loo arkaa inay ka qiimo badan tahay Ballon d'Or waana tan la bixiyo December agteeda inta aan la galin sanadka cusub inta aan la galin mid la bixiyo weeyaan waana mid ay ciyaartooy kasta ku xisaabsado waana mid ciyaartooy kasta ku xisaabtamo oo hadda marka lagu yiraahdo war Messi meeqa Ballon d'Or buu haystaa 5 Ronaldo meeqa uu haystaa 5 maaragtay tan FIFA la sheegayo ma jirto tan baa ka qiimo badan tan ayaa aad ugu qiimo badan oo marka The Best in kastoo la bixi doono dhawaan haddana qofkii la siiha iska qaato ama Van Dijk ba iska qaato laakiin Van Dijk wuxuu isha ku hayo waa Ballon d'Or tan uu farxi doono u dhihi doono yes uu dhihi doono sida club oo gool aliyo kale gacmaha yes dhihi doono dabaaldeg weyn wuxuu sameyn doonaa The Ballon d'Or marka la bixi doono marka abaalmarintan aad iyo aad u qiimo badan tahay abaalmarintan qiimo weyn bay ku fadhisaa iskeersa ma ahan marka ogow The Best waa tan FIFA ay bixiso iyo tan Faransiisku ay bixiyaan Ballon d'Or ayaa qiimo weyn waxaanay Ballon d'Orku bixintiisu ay bilaabatay sanadii 1956 waxaanay hadda jirtaa 63 sano ka hor ayaa la bilaabay abaalmarinta in la bixiyo waa abaalmarinta ugu da'da weyn weeyaan waana sababta ay ugu qiimo badan tahay tan FIFA waa abaalmarinta tanu ee loo yaqaano Ballon d'Or waa abaalmarin la siiyo xidiga sanadka bandhiga ugu fiican la yimaada ama kooxdiisa koob la qaada ama bandhiga ugu wanaagsan la yimaada waxaana abaalmarintan loogu doortay inuu ciyaartooygu ku noqonayo inuu yahay xidiga ugu fiican adduunka waqtiga ka muddo sanad ah ayaa loo dooranayaa waxaana abaalmarintu bilaabatay sidaan hore kugu sheegayo waa sanadii 1956 baa la bilaabay in ciyaartooyga la abaalmariyo oo loo doortay xidiga sanadka ugu fiican dunida laakiin ogow abaalmarintan Ballon d'Or ku la yiraahdo ee soo bilaabatay 1956 labadii 2010 ilaa 2015 inta u dhaxeysay baanu magaceeda lagu bixinin oo iyagu iyo FIFA ay isku biirayo ay ka heshiiyeen in hal abaalmarin laga dhigo
way isqabteen waxay yiraahdeen nimayahow waa lagu abaalmarintan waa lagu wareeray FIFA waxay yihiin ogtaa kuwa ugu weyn kubadda cagta waaba hooyadii Kamal Daariga oo dhan weeyaan FIFA xiriirka ugu weyn Kamal Daariga oo dhan weeyaan haddana maadaama ay arkeen in laga qiimo weyn yahay oo qoliyo xiriiradan Faransiiska ka dhisan ay ka qiimo weyn abaalmarintoodu waxay bilaabeen inay heshiiyaan marka abaalmarintii kooti 6 soo bilaabatay ilaa si usoo socotay Ballon d'Or lagu bixinayay marka la soo gaaray 2010 iyo 2015 FIFA iyo Ballon d'Or baashi waxaana lagu heshiiyay walaalayaal dadka ku wareereen abaalmarinta tanu xidiga sanadka FIFA mid loo dooranayo mid kalena waxa loo dooranayaa Ballon d'Or hal sanad waxa arkaysaa laba ciyaartoy oo kala sheeganaya waxaan nahay kan wuxuu leeyahay ciyaartoy dunida ugu fiican aniga ah kan anaga dunida ugu fiican buu leeyahay ilaa FIFA mid soo siisay Ballon d'Or kan qof kale siiyeen waxa la rinayo mid aan ka fariisano nimayo aan mid ka dhigna waxa kan 2010 ilaa 2015 abaalmarintan waa la mideeyay waxaana magac ahaan looga dhigay way isku biireen labada xiriiroodba oo Ballon d'Or iyo FIFA way wada midoobeen waxaana loogu magac daray FIFA Ballon d'Or FIFA Ballon d'Or ama FIFA World Player of the Year isku bedeshay ama FIFA Ballon d'Or isku bedeshay oo FIFA magaceeda geesa laga galiyay Ballon d'Or geesa laga galiyay waxay isku noqotay FIFA Ballon d'Or marka intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2015 abaalmarintan Ballon d'Or maan waxay isku noqotay FIFA Ballon d'Or labada xiriir labada abaalmarin baa la mideeyo hal abaalmarin laga dhigay si dadku ay ugu wareerin hal sanaba laba ciyaartoy waxay sheegeen kan adduunka ugu fiican laakiin mar dambe way kala bixeen haddana mid kasta gooligiis u baxay 2016 way soo gabagowday waqtigii 2010 ilaa 2015 oo abaalmarintan hal magac isku lahayd oo ahayd FIFA Ballon d'Or 2016 marka la gaaray waa la kala booday Ballon d'Orna gooligiis u baxay gooligiis cid u abaalmaristaa FIFAna gooli u baxday gooligeeda ciyaartoy u abaalmarisaa marka waxa lagu leeyahay abaalmarintan Ballon d'Or muddada soo socotay marka 2015 FIFA iyo iyaga isku biiray oo FIFA Ballon d'Or baa la dhahay laakiin 2016 way kala boodeen 2016 Ballon d'Or goonigiisa u baxsaday ilaa aadna goonigiisa u baxsadaa oo abaalmarintiisa gooni u bixiyaa FIFAna goonigeeda abaalmarinteeda u bixisaa sida hadda soo socotaba hadda the best dhawaan baa bishan baa lagu dhawaaqayaa Ballon d'Orna bilaha ku sixiga ayaa lagu dhawaaqi doonaayo way kala boodeen marka mid kasta abaalmarintiisa gooni u bixinaya inkastoo bariyahan xoogaa la dareemayo ninkii the best ku guuleysta ayaan haddana Ballon d'Or ku guuleysanaya sida la arkay macna xoogaa ma isqa khilaafan inta badan bariyahan xidiga sanadkii hore abaalmarinta the best waxa ku guuleystay FIFA bixisa Modric kadib Ballon d'Or isaga la siiyay hadda abaalmarinta the best soo aadan ciyaartooyga la siiyo ayaa waxa loo arki doona in Ballon d'Or kana kolba la siin doono laga yaabo in iskhilaafana marka abaalmarintaas heerarkaas bay soo martay mar FIFA isku biireen wana kala boodeen marka hadda waa kala gooni haddaba abaalmarintan Ballon d'Or yaa codayn jiray markii hore abaalmarintan Ballon d'Or waxa codayn jiray laga soo bilaabo 1906 ilaa 2006 laga soo gaaro journalistayaasha ama wariyaasha ayaa codayn jiray laakiin wixii ka dambeeyay 2007 abaalmarintan waa la bedelay waxaana codka xaq loo siiyay wax ka dhiibtaan tababarayaasha iyo kabtanada markii hore waxay ku ekeyd wariyaal laakiin hadda waxa lagu soo daray in tababarayaashan ay u codayaan xidiga sanadka ugu fiican ay codayaan oo ay doortaan iyo kabtanada inay doortaan ba la sameeyay ogow abaalmarintan la yiraahdo Ballon d'Or asalkeeda ciyaaryahan Yurub dhashay baa la siin jiray ciyaaryahan Yurub ka soo jeeda oo baa la siin jiray lama siin jirin ciyaaryahan Afrika ka soo jeeda ciyaaryahan Amerika ka soo jeeda ciyaaryahan Aasiya ka soo jeeda wixii Yurub ka dhashay oo baa abaalmarinta la siin jiray waa waqtigii hore abaalmarinta marka la bixin jiray sida hadda maanta ma ahan adduunyadu ciyaartoy kasta u qalma la siiyo ma ahan laakiin waqtigii hore marka ciyaartoyga Yurub ka soo jeeda oo baa xaq u lahaa in abaalmarinta Ballon d'Or la siiyo laakiin sanadii 1995 Ballon d'Or wax badan baa laga bedelay qaabkiisa waxaana laga dhigay in ciyaartoy kasta oo u ciyaara koox Yurub ah in abaalmarinta la siiyo ilaa Afrika ka soo jeedo ama Yurub Amerika ka soo jeedo markii hore maadaama la siinayo ciyaaryahan Yurub dhashay un bakaliya waxa la yiraahdaa saa macquul ma ahan saashantii waxa la bilaabay abaalmarinta in la siiyo ciyaartoy u ciyaara koox Yurub ah ha ka soo jeedo Afrika duurba xataa Yurub haduu ninka koox Yurub u ciyaarayba oo kooxaha Yurub u ciyaarayba in la siiyo la bilaabay ilaa wadanka hore waxa ka soo jeeday iyo qaaradu rababa abaalmarinta laakiin 2017 hadda la sii bedelay 2017 waxa loo bedelay abaalmarinta tanu in la siiyo ciyaartoy kasto adduunka jooga ama Afrika ahaado ama Amerika ahaado ama Europe ahaado ama Aasiya ahaado 2017 wixii ka dambeeyay abaalmarintan Ballon d'Or waxa laga dhigay in la siiyo ciyaartoy kasta oo Kamal Daariga reexaya nin kasto banugaas garaacanaya nin kasto maqaarkaas ku fiican garaacistiisa in la siiyo lagu aamiyay marka abaalmarinta heerkaasna way soo lahayd 9 يعني original geeda abaalmarintan markii hore nin Yurub baa la siin jiray saashantii waa la bedelay waxa la yiri war ciyaartoy kasta koox Yurub u ciyaaraya haba noqdo madow ama meel kasta ka yimaade koox kasta Yurub nin u ciyaaraya hal la siiyo la yiri haddana waa la sii bedelay waxa lagu todoba laga dhigay ciyaartoy kasta oo adduunkan ka soo jeeda dhinac kasta ka soo jeeday qaarad walba ha noqdee adduunku abaalmarinta in loo dhax dhigo ninkii ku guuleysta hal la siiyo baa la yiri heerkaasna way soo martay
abaalmarintan ninkii ugu horeeyay ee la siiyaa waxa uu ahaa nin la oran jiray Stanley Matthews waxaanu ku qaatay kooxda kubadda cagta Blackpool wuxuu u ciyaari jiray kooxda Blackpool buu ciyaari jiray markii ugu horeysay abaalmarintan la bilaabay in la bixiyo sanadii 1900 iyo maxaa la yiraahdaa 56 ninka Matthews ba ahaa ninkii ugu horeeyay ee ku guuleysta waxaana uu ahaa ciyaartoy u dhashay Ingiriiska marka Stanley Matthews ayaa ahaa ciyaartoyga ugu horeeyay ee abaalmarintan la siiyo ciyaartoyga kaliya Afrikaana ee taariikhda abaalmarintan la siina wuxuu ahaa nin la oran jiray George Weah hadda waa madaxweynaha Liberia Afrikaanka qura ee taariikhda abaalmarintan la siiyay isaga buu ahaa waxaanu noqday ciyaartoyga ugu horeeyay aan Yurub u dhalan ee abaalmarintan la siiya maxay la sharci waxa jira barigaasaan ku soo sheegay ciyaartoy kaliya Yurub u dhashay u baa la sii jiray abaalmarintan markii dambe isagu waa la bedel sharci waxa la yiri wadan kasta ha u dhashay laakiin koox Yurub ha u ciyaaro Weah baan ku qaatay marka abaalmarinta xilliga ka isagoo Milan ka tirsan marka ciyaartoyga Milan Africa ee George Weah ayaa xilliga loo doortay jaayisada ka waxaanu noqday ciyaartoy ugu horeeyay aan Yurub ahayn ee abaalmarintan la siiya waana ninka kaliya Afrikaan taariikhda Luis de Lima Nazario Ronaldo weyni buurnaa weeyaa midkii Brazil Ronaldo weyne Nazario el fenomeno ninkii wax kala ahaa ayaa isna waxa uu ahaa ninka kaliya ee taariikhda ugu horeeyay ee ka soo jeeda Koonfurta America ee 2 jeer abaalmarinta ku guuleysta no maahan sida ka haddii uu noqday waa ninkii ugu horeeyay ee aan Yurub u dhalan ee abaalmarinta la siiyay yaani ee noqday ee Afrikaanka ugu horeeyay noqday Amerikaanka ugu horeeyay abaalmarinta la siiyay wuxuu ahaa Luis de Lima Nazario Ronaldo ogow Lionel Messi Cristiano Ronaldo ayaana ah ciyaartoyga ugu badan abaalmarintan haysta min 5 jeer bay inuu qaadeen taariikhda waxaana kale sidoo kale jira ciyaartoy min 3 jeer abaalmarinta ku guuleystay waana ciyaartoyga kala yiraahdo Cruyff Ballatini iyo Van Basten laakiin ninka kaliya ee taariikhda abaalmarintan 4 jeer oo xiriir ku guuleysta waa hadda 4 jeer yaa qaaday Messi waa isaga ninka qura ee taariikhda weeyaan abaalmarintan 4 sano xiriir ku guuleysta weeyaan ninka gaaban ee Messi iyana waa taariikh kale oo gaar ah oo laga dhaxlayo tartankan sidoo kale waxa jirta taariikhda tartankan 8 ciyaaryahan u baa jira taariikhda 8 ciyaaryahan oo baa taariikhda jira ee ku guuleystay koobka adduunka tartanka Yurub ee Champions League loo yaqaano iyo jaayisada Ballon d'Or xirfadoodu waa ciyaartoy kala ah Bobby Charlton Frank Beckenbauer Gerard Muller Paulo Rossi Zinedine Zidane Rivaldo Ronaldinho iyo Kaká waxay ciyaartoygu kanu yihiin 8 ciyaartoy qura ee taariikhda ku wada guuleystay abaalmarinada iyo tartamada waaweyn sida koobka adduunka tartanka la yiraahdo tartanka Champions League iyo Ballon d'Or kuba على أي حال ليس كان رجع وجود خادست بدن بالنديوركو رونالدو شانشير ميسي شانشير بلاتيني 3 جير كروف 3 جير فان باستن 3 جير فرانكا بيكنباور iyo Luis de Lima Nazario Ronaldo Di Stefano iyo Kevin Keegan oo lagu daray Hominic iyana min 2 jeer bay qaadeen min hal jeerna waxa abaalmarintan qaaday nin la oran jiray Luis Suarez oo 66kii qaaday Eusebio Charlton Coba Mula Zidane Rivera Gullit Matios Baccio Roberto Baccio weeyaan Stokovic Shevchenko loo ka fartay buu qaaday Shevchenko George Best Alan Simpson iyo Ronaldinho iyo min hal jeer bay abaalmarinta ku guuleysteen wadanka abaalmarintan ugu guuleysiga badan waxa weeyaan Germany 7 jeer bay haystaan Ballon d'Or ka wana Germany 7 Ballon d'Or bay haystaan 5 ciyaaryahan baana kala qaaday Holland baa ku soo xigta 7 jeer bay haystaan 3 ciyaaryahan baana qaaday Portugal 7 jeer bay abaalmarinta ku guuleysteen 3 ciyaartoy baana kala qaaday Faransa 6 jeer bay abaalmarinta ku guuleysteen 4 ciyaartoy baana kala qaaday Talyaaniga 5 jeer bay Ballon d'Or ku haystaan 5 ciyaartoy baana kala qaaday Brazil 5 jeer bay haystaan Ballon d'Or kanu 4 ciyaartoy baana kala qaaday Ingiriisku 5 jeer bay Ballon d'Or ku haystaan 4 ciyaartoy baana kala qaaday Argentine 5 jeer bay abaalmarintan u haystaan hal ciyaartoy baana qaaday waana Messi halka Soviet Unionku 3 jeer 3 ciyaartoy u qaaday 3 jeer bay haystaan Spain 2 ciyaartoy u qaaday 3 jeer bay haystaan Ballon d'Orku Bulgaria Croatia Czech Denmark Hungary Liberia Netherlands Scotland iyo Ukraine iyo min hal jeer ay haystaan Ballon d'Or kan wadan ahaan kooxaha ugu qaadista badan ciyaartoyda Ballon d'Or kanu Real Madrid iyo Barca u baa taariikhda labada kooxood ee ciyaartoyga Ballon d'Or ugu badan ay yaalaan min 12 jeer Ballon d'Or baa yaala Real Madrid iyo Barcelona ciyaartoygu wada kala qaaday Real 7 ciyaaryahan baa Ballon d'Or ku qaaday Barcelona 6 jeer ciyaaryahan baa ku qaaday Ballon d'Or laakiin labada koox waxay ka sameeyeen min 12 Ballon d'Or ayaa kooxaha kala haystaan yaani Barcelona 12 Ballon d'Or ayaa la geeyay gurigeeda yaani 12 Ballon d'Or bay ciyaartoygu Barca taariikhdu qaadeen halka Real Madrid inuu 12 Ballon d'Or inuu qaadeen laakiin ogow Real 7 ciyaaryahan baa Ballon d'Or ku qaaday iyagoo u ciyaaraya Barcelona 6 bay ku qaaday laakiin 12 way ka sameeyeen ciyaartoyga lagu kala badan yahay mooyaane Juventus 8 Ballon d'Or baa taala 6 ciyaartoy baana qaaday Milan 8 Ballon d'Or baa taala 6 ciyaartoy baa qaaday Munchen 5 Ballon d'Or baa taala 3 ciyaartoy baa kala qaaday 3 ciyaartoy bay ku qaaday halka ka
Manchester United afar baldoor baa lagu qaaday afar ciyaartoy baan ku qaaday Ronaldo ku jiro Kiev ayagu laba baldoor baa taala Inter Milan laba baldoor baa taala laba ciyaartoy baan ku qaaday sidoo kale Hamburg laba baldoor baa taala Ajax laba baldoor baa taala Benfica Blackpool Borussia Dortmund Mönchengladbach waa Borussia Mönchengladbach Braga Moscow Liverpool iyo Marseille min hal baldoor baa yaala haddaba inta ku dhaafno wax walba oo marka ku saabsan jaayisada caanka ah ee Ballon d'Or waa jaayisa jirta muddo 63 sano weeyaano konton iyo lixdii baa la bilaabay waqtiyada quruxda badan waqtiyada kala duwan oo ciyaartoy xataa Yurub aanu dhalan kaliya Yurub la siin jiray ee hadda la bedelay xataa loo bedelay dunida oo dhan xataa loo bedelay kuwa Yurub ka ciyaaraya wax badan bay marxalada kala duwan bay soo martay abaalmarinta iyo mar FIFA isku beereen iyo mar kala boodeenba wax walba Ballon d'Or ku saabsan oo ay jamaahirtu ciyaartay naga codsadeen asxaabta naga codsadeen wax walba Ballon d'Or ku saabsan inta ku gabagabeynaynaa wax walba ku saabsan ciyaartooyga la isba bardhigayo ciyaartooyga taariikhooda kooxuhu taariikhooda qaybta hoose noogu reeba anna waxaan diyaar u ahay inaan soo ogaado fariimihiinu kadibna aan idin soo gudbino taariikhda ciyaartooyga haddaad channel ku cusub saxaabay noo saara subscribe halkan wax walba sportiga taariikhiisa wad ku heli doontaan insha Allah nabadgelyo anigu maxamed qadab la socodsinay waanan arki doonaa sanadkan cidda awalmarintan maanta aan ka sheekeynayna Ballon d'Or cidda la siiya wallow aan isleeyahay Messi Ronaldo marka la marada ka dhici doonto haddii sanadka marada laga riday haddana sanadka marka la marada ka dhici doontaan isleeyahay adduunku bariyahan waa vandaajisan yahay maalin Yurub ku guuleystay kan waa ka yaabanahay muddooyinka kanba madaxan ka dareemaya sanadkan inuu isagu la sii karayo walow Messi iyo Ronaldo nasiib aan u rajeynayo odayaashii baatiino kabiiriin baatiino iyaga markasta u qalmee Messi markasta u qalma abaalmarintan Ronaldo markasta u qalma laakiin waqtiga kan adduunku waa isgidiyay adduunku ma Messi isna ma Ronaldo isna nabadgelyo maanta qiyaaray